mucaaridka ah UCID ayaa maanta ka dhacay magaalada madaxda gobolka saaxil ee Berbera soo baxaasi oo lagu soo oo ay xuduudda taageerayaashooda ku soo bandhigayeen murashaxiinta kala duwan ee xisbiga UCID ee ka sharaxan degmada Berbera ayaa waxa ay isugu yimaadeen xafiiska xisbiga UCID ee magaalada Berbera halkaasi oo ay ku soo bandhigeen xuduudda taageerayaashooda waxaana ay si weyn u muujiyeen sida ay u taageersan yihiin xildhibaanadaasi mucaaridka ee UCID dadweynahan oo si weyn u sitay dadweynahan oo lulayay astaamaha ururka UCID astaamaha xisbiga UCID iyo waliba murashaxiinta kala duwan ee xisbigaasi ka socota nambaradooda codeynta booskaadhadooda iyo ereyada ay ku taageerayaan ayaa goobtaasi soo buux dhaafiyay isla markaana qaar ka mid ah xildhibaanada xisbi ka sharaxan xisbiga UCID ayaa halkaasi kala hadlay una soo jeediyay inay xisbigaasi si weyn u taageeraan una codeeyaan maalinta codbixinta haddii ay doodo oo aan gobaha gaaro inaan isbedel ku keeno degmada Berbera nin albaabkiisu xiran yahay noqon maayo xildhibaanadana soomaali kama diidin soo doonaysa loo adeegtaan waalina ka tiid ilaahay Berbera adoo dadkii waa waqtigiis kuma gaaray ilaana doorataan xaqlaa u leedahay waana waajibaan waxaanu qaban doonaa inkayda odhan bayna waxaay waxaanu qaban doonaa idinkaanu marti idin nahay haddii aa codkiina nasiseen adaarkiinanu guri doonaa soo baxan ayaa noqonaya maalintii labaad ee xisbiga mucaaridka ee UCID uu ka qayb qaato ololaha doorashooyinka Somaliland loogu diyaar garoob doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Somaliland loogu diyaar garoobayo waxaana ay soo baxaasi ka dhex muuqday ninka dheer kamid ah ragga dunida ugu dhaadheer Xuseen Bisad oo isaguna ka qayb qaadanayay soo baxaasi Abdikariim Saciid Saalax telefishanka caalamiga ah ee Home Cable TV Berbera